ciid wanaagsan kullu caan wa antum bil khayr dhammaan walaalaha qaaliga ah ee ku xiran Hargal TV haddii aad channelka ku cusub tahay daawade fadlan subscribe saar lana sii wadaag saaxiibada jeceshay inay qayb ku noqdaan dadka ku xiran Hargal TV ciid wanaagsan ayaynu mar kale idin leenahay maanta waxaynu halkaan idinku soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay hambaliyada ciida iyo waliba suxufiyiinta Soomaaliyeed barnaamijkan waxa ay kala qayb qaadan doona furiyaasha Soomaaliyeed oo iyagu hambaliyo u marinaya hawada bulshada Soomaaliyeed ee u shaqeeyaan mar waliba heeganka ay u yihiin inay waxyaabo fara badan u soo gudbiyaan haddaba yaanan hadalka idinku sii badine bal aan toos idinkugu dugo barnaamijka iyo waliba wariyaasha igala qayb gali doona barnaamijka سعيد آدم موسى مركور وكوسو دوينا يا هرجل تي في مركح حتى وحن كلها عيد ونكسن كافي وما تنتهي عيد لمدا يعني كلنا نهاية دقيقة دمان بعد هرجل تي في دمان شعب الصوماليات ملك السوي جوجان عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير سنة كان سنة كيسة إلهي نبض يبشبش يبرواخر دمانتين هنقود جرسي سعيد بالمانت ومانت كواد عيدة أديكو أهان مدام أتاي صحفي شقاية haddana inta badan aadan fursad u helin inaad shacabkaada tiraado ciid wanaagsan dareenkaaga maanta waa sidee kaafi oo maanta mar kale horta marka hore aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo wariyaasha halkan shacabka Soomaaliyeed maanta ugu hambalyeeyo oo farxadda ciida aan fursaddan uga faa'iideysanayo inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalya aan dhaho marka xigta ciidani waa iska ciidii dadweyneeda inta badan sida dadka yiraahdaan oo dadku hilibka ayaa inta badan aad loo cunaa ciidani marka inkastoo aan fursado badan aan u helinin inaan meelo badan ay hilib ka doonto haddana ma qadsaniyo hilib badanna waa soo cunay wax kalena waa ii dhimayn maalmaha soo aadan waa ka sii faa'iideysanaya waad mahadsantahay kaafi Sheekh Xuseen adiga dhammaan bahada Hargal TV waan idinkaga mahad celinayaa fursaddan quruxda badan aad siiseen waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa haadinka iyo sidoo kale dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair farxadda ciida oo maanta aad looga dareemay ama guud ahaan looga dareemay ciidani gudaha iyo sidoo kale dibadda inta shacab ee afka Soomaaliga ku hadasha iyo muslimiinta dhammaantood oo maanta u dabaaldegaya damaashaadka iyo farxadda ciida ayaan idin leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak waxaan idin leeyahay sanadkan sanadkiisa kan xigaahay barwaaqo iyo bashbash Allah inagu gaarsiiyo maamaha dhigi jira ayaa jirtaahay tagtaatii timaadaba joogtada ku talagala macnaha marka sidaasi ay tahay waxaan leeyahay mar walbaahi ku talagala mar walbaahi dhammaantayada inaan ku talagalnahay in aanu isla wadaagnahay farxadda ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxaan idinkaga mahad celinayaa fursaddan aad siiseen waliba aniga gaar ahaanteeda farxad ayay tahay maadaama aad fursaddaani ay tahay mid ka mid ah fursadaha ugu waaweyn ee bulshada ay dhifii naadir ku heshahay كافي شيخ حسين أحمد أديك يودمان أصحاب هرجل تي في داودياشا يوليب أصحابتنا كحرن يوتيوب channel كنا وحد الله عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير عيدا إذا إلى نوجارسيو بشبشي برواقه دماننا حلا عيد ونكسن هلبكن سفعال ayaan isfar hada uma santa marka waxaan ku leeyahay anaguna ciid wanaagsan bal adigu ahaan maadaama ayaan aad tahay muddo aad u dheernaa shaqooyin fara badan shacabka u soo oo mihnadaani saxaafadda ah aan in badan ku soo shaqeynaysay adigu ahaan maanta dareenkaaga iyo waliba farxad ciida dhanka hilib cunista yaanan ka reebine bal ka waran كافي مركل وما سنتهاي درين كيغا فرحداد لما سو كوبي كرو ماداما أصحابتيدا iyo dhammaan bulshada aan u tabinayo barnaamijyo farxad oo ciid ku saabsan maadaama maalmihii kale la tabinayo barnaamijyo kale oo dhanka siyaasadda ama arrimaha bulshada ah laakiin labada maalin iyo saddexda maalin ee lagu guda jiro ciidan waxaa la tabinayaa inta badan warar iyo barnaamijyo ku saabsan dhanka iyo munaasabadaha ciida iyo sida dadka ay u ciideysanayaan runtiina waan ku faraxsanahay in bulshadeeda farxadda aan kala qayb qaato hilib cunugana kulley aniga dhanka iyo buskudka iskuma fiicno waa ogtahayo dhanka hilibka aad baan uga helaa asxaabtii iidii hore ila socotay oo barnaamijyadeedii dhageysanaysay waxay ogaayeen in ciid fitri iyadoo la joogo ciid araf aan dhahayay marka taas igama ahayn in aniga iska keenay waxay iga ahayd mar uma hilibka la gaaro marka hilibkiina waa la joogaa ilaahay caafimaad waa nagu gaarsiiyey maantana hilibka waa cunaynaa hilibkalena waa loo sii dhimay qaybta koowaad ee barnaamijka hambaliyada ciida waliba suxufiyiinta Soomaaliyeed daawadayaal halkaas ayaan jeclahay maanta inaan ku soo gabagabeeyo
intaan qaybta xigto ku kulmi doono haddii allaha awood leh uu raali ka noqdo waxaan idinkaga tagayaa sidaasi nabadgelyo hana hilmaamina inaad channelka iyaga subscribe aad sii saartaan lana sii wadaagtaan saaxiibada qaaliga ah idinkugu xiran sidoo kalena fikirkiina iyo weliba dhiirigelintiina iyaduna waa lagama maarmaan waxaadna qaybta hoose ee commentiga aad fariimaha inoogu reebtaan aad baan u mahadsantihiin